لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha iyo asxaabta meel kasta oo aada joogtaan, ramadaan mubaarak. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa bishan barakaysan kheyrkeeda iyo barakadeeda inuu ilaahay subxaanahu watacaala na siiyo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu naarta qoorteenna ka xoreeyo, annaga iyo waalidiinteen iyo aswaajteenna iyo duriyadeenna iyo walaalaheen muslimiinta ah oo dhanba ilaahay subxaanahu watacaala naarta hanaga xoreeyo, jannadiisana ilaahay subxaanahu watacaala hana geliyo, albaabadeedu furan yihiin. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaaday inuu yidhi idaa kaana awala yowmin min ramadaan, maalinta u horeysa ee bisha ramadaan, futixat abwaabu ljannati athamaaniya, albaabada jannada oo dhan waa la furaa oo sideeda ah. waqulliqat abwaabu naar asabc, albaabada toddobada ah naartana waa la xiraa. taasu waxayna tusinaysaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa la rabo inay jannadana galaan, albaabadeedu furan yihiin oo ku soo dhowaadaan, naartana ka leexdaan. albaabadeedii waaba la xiray, xaggee ugu socotaa weeye macnuhu, xaggee baad u aadaysaa? dembiyada iyo waxyaalaha naarta wadadeeda keenaya inaad iska dhowrto. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannadiisa na geliyo, ilaahayna subxaanahu watacaala naarta naga koriyo. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa bishan waa bishii qur'aanka, inuu qur'aanka kariimka ah qalbigeena miduu ku daawoobo oo ku caafimaado, oo ilaahay subxaanahu watacaala iftiin uga dhigo, inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga dhigo. qur'aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay nuur, walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina wa inaka latahdi ilaa siraaطin mustaqiim. wuxuu kaloo ilaahay subxaanahu watacaala ka dhigay yani hanuun, dadka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku hanuuniyo oo ku hago ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigay. wuxuu kaloo ilaahay ka dhigay caafimaad buu ilaahay subxaanahu watacaala ka dhigay. qur'aan kariimka ah caafimaad jirku u yahay, qalbigu u yahay, maskaxdu u yahay, fikirku u yahay, qofka noloshiisao dhan buu u yahay caafimaad. wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaء waraxmat lilmu'miniina walaa yaziidu الظaalimiina ila khasaara. sidaasoo kale uu ilaahay subxana watacaala u yihi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa, dadka mu'miniinta ah wuxuu u yahay hanuun iyo caafimaad buu u yahay. ilaahay subxaanahu watacaala caafimaadkiisa hana siiyo oo jirkeenna ha ku caafimaadiyo, qalbigeenna allah ha ku caafimaadiyo, maskaxdeenna iyo caqligeenna allah ha ku caafimaadiyo. waayo caqligu marna waa fiyow yahay, marna waa jiran yahay. qalbigu marna waa jiran yahay, marna waa fiyow yahay. jirku marna waa fiyow yahay, marna waa jiran yahay. markuu jiran yahay waa dhibaato, hadduu qofku qalbiga ka jiran yahay waa dhibaato. cudurada qalbiga gala waxaa ka mid a xasadka, waxaa ka mid a malaha xun, waxaa ka mid a yani qofka muslimkaa inaad xiqdi u hayso, cadaawad u hayso, waxyaalahaasoo dham waxyaalaha cudurada qalbiga gala oo xun weye. waxaa ku daawooba qur'aanka kariimka buu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku daaweeyaa. waxaa gala shirkiga, waxaa gala kufriga, waxaa gala nifaaqa. ya ilaahay subxaanahu watacaala sida uu qur'aanka kariimkaa ku sheegay, cuduradaasoo dhan buu daawo u yahay qur'aanka kariimka ahi, hadday yihiin kuwa muuqda iyo hadday yihiin kuwa aan muuqan. ilaahay subxaanahu watacala waxaan ka baryayna inuu caafimaad nagu siiyo. annagana waxaa loo baahan yahay bishii qur'aanka weye inaan ku dhowaano oo fahamno oo akhrino oo wax ka qaadano oo kuwaana qaadano. qur'aanka ilaahay subxana watacala wuxuu soo dejiyay in lagu waana qaato, in lagu fekero, in la isku bedelo. bishan waa bishii isbedelka. ilaahay subxaana watacaala wuxuu bishan yani u sameeyey cibaadaad gaar ah, wuxuu u sameeyey ilaahay subxaana watacaala nidaam gaar ah, wuxuu ilaahay subxaana u sameeyey yani wakti wax la cuno, wakti la afuro, wakti la tukado, wakti ilaahay subxaana watacaala la baryo, waktiyaal gaara iyo cibaadooyin gaara baa lagu khaas yeelay. sababtuna waxa wey inaad isbedeshaa la rabaa. nidaamkaagii rootiinka ahaa ee socday sanadka dhan aad ku dhaqmaysay ayaa la rabaa in wax laga bedelo. haddaana wax iska bedelina sidaadii hore aad tahay, ramadaankii waxba kaama bedelin, macnaha waxba kuma tarin weye macnaheedu. marka taas horta insha allahu tacaala waxaan jeclahay qodobka u horeeya, 3 qodob oo aan rabay inaan ka hadlo inaan ugu hormariyo. qodobkaas koowaad waxaa weeye ramadaanka ama bishan soon maanta waa 4 way socotaa, waa deg. ilaahay subxana watacaala wuxuu ku timi ayaaman macduudaat, maalmo la tirin karo waayo, waa maalmo tirsan.
dhinac waxay ka tahay sabirsiin oo waxa weeye culays badan idinkuma aha, waa maalmo kooban, 2 bilood maaha, 5 bilood maaha, 6 bilood maaha, sanad maaha, waa ayaaman macduudaat, waa maalmo kooban, 29 cisho 30 cisho kamama badnaba. marka waxa weye waba ordayaa, waa kana maanta waa 4 ayaynu maraynaa, yani asbuucii u horeeyey baa dhammaad ah oo sii socda. inaynu ka faa'iidaysano walaalayaal inaynu ka faa'iidaysano rag iyo dumar, yar iyo weyn, inaynu ka faa'iidaysano oo bishaas si wanaagsan uga faa'iidaysano. qodobka koowaad. qodobka labaad, waxaan jeclahay inaan cudurkan faafaya coronavirus ee adduunka kala xiray, anigu waxaan idinkala hadlayaa turkiga. safar baan ku ahaa, waa joogay bishii hore horaankeedii baan imi. taqriiban waxaan ku tashanayay inaan bishaas aakhirkeeda oo kaleeto aan noqdo, laakiin asbaabtan kalaa timi. ilaahay subxaanahu watacaala halkan buu ka dhigay. sideedana marka anagu horta dadka muslimiinta dhowr qodob oo arrinka inagaga aadan baan rabaa coronavirus inaan yani ka hadlo. qodob koowaad waxa weeye maqaadiirta ilaahay subxaanahu watacaala ayaa koonkan oo dhan ku socdaa. inaguna mu'miniin haddaynu nahay muslimiina qadarta weyn rumaysannahay, waa numina bilqadari khayrihi wa sharihi. midda labaad, qadartaasu hadday tahay khayr iyo hadday tahay shar, labadaba qofka mu'minka khayr bay u tahay. qofka mu'minka, walaysa dalika ila lilmu'min, qof aan mu'min ahayni nasiibkaas ma laha. qadarta ilaahay subxana watacaala dhacaysa iyo wixii dhacaya, khayr iyo shar waxay yihiin, qofka mu'minka ah arrinkaas si fiican u xusuuso. qofka mu'minka ah khayr bay u tahay, qofka muslimka ah khayr bay u tahay ee rumaysan qadarta. sidee bay ugu tahay? waxaa sheegay nebiga calayh salatu salaam ayaa noo fasiray oo wuxuu yidhi, in asaabahu khayrun fashakara kaana khayran lahu. haddii ay waxa dhacay wax khayra oo isaga yani toos u arko ay yihiin oo uu ilaahay ugu shukriyo, khayr bay u tahay, wanaag bay u tahay, soo ma ha. wain asaabathu daraau, hadday tahay yani wax dhibaato ah oo soo gaaray, fasabara, oo uu ku sabrana, khayr bay u tahay. oo sabir iyo shukr wuu u dhexeeyaa, mar uu ilaahay mahadiyo, maruu ilaahay u sabro, labadaasuu ku dhex jiraa, labaduba khayr bay u yihiin, sida ilaahay subxaanahu watacaala maarata nebigu alay slat slam uu noogu fasiray. walaysa dalika ila lilmu'min, arrinkaas qofka mu'minka maahna qof kaleeto ma helayo, ya qof kaleeto oo iskalihi ma jiro. marka horta mar walbaba inaan ilaahayna ku shukrino, ilaahayna ugu sabirno wixiina soo gaara, taasna way nagaga aadan tahay. 3, waxaa kaloo inagaga aadan oo aan ogaanayna wixii asbaabo ah oo wixii dhib ah aynu iskaga qaadayno inaynu ku talagalno oo aynu samayno. yani haddii cudur yimaado, haddii yani daacuun yimaado, haddii dhibaato timaado, wax kasta nooc kastaba ha ahaatee, qofka mu'minka ama muslimka waxaa u furan inuu qaato sababaha iyo wadooyinka iyo dariiqyada lagu gaarayo inuu dhibkaa iskaga qaado. hadday daawo tahay wuu isdaaweyn, cisbitaal buu tegi, dhakhaatiir buu u tegi. hadday tahay maaragtay mushkilad kaleeto, ciddii mushkiladaas xallin karta buu raadini. noocay tahayba waxaa la rabaa inuu isagu qaato sababaha. ma reebana, tawakulkana kama reebana. culimada marka ay fasirayaan waxay yidhaahdaan, waxaa la rabaa tawakulka macnihiisa qofka mu'minka, cala allahi falyatawakal ilmu'minuun, marka aynu fasirno waxa weeye sababaha inaad u qaadato sidii aadan wax kala sugihayn, wax kale sidii aadan sugihayn oo kaleeto, waa inaad sababta u qaadataa. waa sida hadda dadkan reer galbeedku runtii ay asbaabaha u qaataan oo ugu talagalaan, iyo wax kale ma sugayaan, ilahay xaggiisana waxba kama sugayaan, waxay ku talagalayaan sababta ayay wax walba isugu geynayaan. asbaabaha la samaynayo, taxadirka la samaynayo, sida shayga loogu fikirayo. marka waxaa la rabaa inaad asbaabta u qaadato sidii waxba aanay kaaga dambayn, wax kaaga dambeeya aanay jirin baa la rabaa inaad ugu dadaasho. kadibna inaad ilaahay markaad asbaabta ku dadaasho, inaad ilaahay tala saarato oo tawakusho, sidii asbaabtaas waxba aanay ku tarihayn oo kaleeto, waxba aadan ka soo qaadihayn, inaanay waxba ku tarihayn, iyada ha wakiilan. waxaad ugu amran tahay inaad qaadato, yani diintaada ku faraysa, laakiin iyada ha isku halayn waaye. marka labada dhinac saasaa la rabaa inaad isugu wado, inaad asbaabtiina qaadato, ilaahayna tala saarato sidii asbaabtaan waxba aanay
kaa tariyahayn. saas darteed haddii la yiri yani ha laga fogaado meelaha maaragtay laysugu imaan karo, meel kastay tahay, makhaayad bay tahay, meelaha cuntaday tahay, masaajidaday tahay, goobaha shirarkay tahay, goobaha shaqaday tahay, meel kastoo ay tahay, dadku ha la kala fogaado haddii la yiri, oo meelaha aadka loogu badanayo saxmadana ha la yareeyo. sidaasaa cudurkan loogaga horreytay karaa. waa arrin ijmaaca buu noqday. arrinkaas wuxuu noqday arrin ijmaac, gaal iyo muslim baa isku waafaqay. dadkii aqoonta lahaa, dadkii khibradda u lahaa, dadkii cilmiga u lahaa saasay yidhahay. dowladihii baa saas ku qaatay. mana aha arrin sax ah oo aan maanka gelino. waxaasoo dhami waa wada qaldan yihiin, ijmaacaasoo dhami waxba iguma jiraan sidaan doonaya, sax maaha. marka saas darteed soomaalidii meelo badan oo hadda newska sida aan ka eegeyno ayaa lagu kari la'yahay baa lagu leeyay. hadda shalay maadorad waxaan fiirinayna masaajid south africa meel ku yaha askari ay dadkii jijefisay, yani si kontrabaan oo kaleeto suuq madow ah bay masaajidka jimco ugu tukanayeen. war waxaaba la yiri yaan laysu imaanin. ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu kuu baneeyey haddii sababay yimaadaan jamaacada iyo jumcada inaan laysu imaan. roob hadduu da-o baan laysu imaanayn. dabayl hadday timaado baa jamaacadii laga tegayaa iyo jumcadii. ya daadad hadday yimaadaan, khoof hadduu cabsi hadday timaado, waxaasoo dhan oo sababaa baa loo baneeyey. maxaa fahamkan muxuu yahay ah inaad isku kakabayso hadhow askar gaalaha intay kuu timaado xoog ay kaaga saarto oo banaanka kugu turto? saxna ma. dhanka kale dadkeena qaarkeed wadankeena sidaan ka maqlna xitaa wadaaiyo maya sababtu weli ma jirto, wax maaragtay cabsiya weli ma jiraan, ha lagu jiro maaragtay masaajidada jamaacada yaan la catilin, meelaha yaan lagala mid dhe. markaas suuqyadiiba waa la joogaa. war suuqyadan dadkan jooga ee aan aqoonta lahayn, dadka culimada ah iyo dadka waxgaradka iyo dadka fahamkale miyay ku dayan karaa? ma waxaad uga qiyaas qaadanaysaa suuqa bakaaraha iyo dadka suuqyada jooga oo la celin kari la'yahay? miyaad masaajidka iyo meelaha kale uga qiyaas qaadanaysa? ugama qiyaas qaadan kartid. marka saas darteed waxa weeye annagu waa inaan samaynaa sabab kastoo aan awoodi karno gacanteenna ku jira. wixi aan gacanteenna ku jirin, gacanteenna ka baxsan, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u baryayna inuu maaragtay sulansiiyo, xaqa sulansiiyo. marka ha noqoto meelaha laysugu imaanayo oo dhanba oo masaajidu ka mid yihiin. dadkii haddii la yidhi hala kala fogaado, waa waxyaalaha loo bahan yahy dadka soomaaliyeed inay fahmaan. ilaa hadda waa la fahamsiin kari lahay. meelo badan oo adduunka ka dhacay ayaa iyagii ay soo taagan yihiin. waxay ku leey maya waa soconaynaa, annaga waa baxaynaa, waa yeelaynaa. arrinkaas marka taxadarka in la qaato waa arrin ku amn. annagu hadda turkigaan joognaa, halkaan ku xabisannahay. gurigaan idinkala hadlaya waa ujeedaa, balakoonkaan fadhiyaa. mindha hadda bil banaankaas ma aanan u bixin. alaabta adeega markaan hore dhalinyarada iyo meelahan tago oo soo qaada, ma garanaysaa. marka waxaana waa insha allahu tacaala waana wakti kooban oo ilaahay idankiis waa tegi doonaa. ilaahay baan baryeynaa, gurigeenna ilahay ku baryeynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil markii ay fircoon ka baqayeen, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu banayey guryahooda inay masaajid ka dhigaan, iyadoo ay jirtay inay kanaa'istooda iyo macaabidooda iyo ay ku amranaayeen inay ku tukadaan. laakiin maadaama cabsi timi, masr wuxuu yihi ilahay subxana gurya ka samaysta, guryihiinana masaajid ka dhigta. wawxayna ilى muسى وأkhiihi an tabawa'a liqowmikuma bmisra buyuuta wاjcaluu buyuutakum qiblaة وaqiimuu الصalaaةa wbashir الmuؤminiin. aayadda saddex aayadood cibrada ka qaadanayna, lanno reer bani israa'iil bay qisadu ku socotay, laakiin annaga nagama reebana, lannahu cibradu waxa weeye faa'iidada guud ee ay maarata aayaduhu faa'iideynayaan qur'aanku ee ma aha sababta ay kusoo degtay keliya. marka saddex arrimood bay aayaddu faa'iideysay oo reer bani israa'iil lagu yidhi. waxa weeye midda koowaad, wajcaluu buyuutakum qibla, guryihiinii masaajid ka dhigta, meelaad ku tukataan oo ku cibaadaysataan ka dhigta. ko wa aqiimuu salaata, salaadiina ooga oo meeshaas ku ooga, guryihiina ku ooga. salaaddii lagama tegin. hadda marka la leeyahay hala kala fududaado xoogaa, dee salaaddii ha laga tago lama oran, oo cibaadadii ha laga tago laga oran, oo ilaahay hala baryo ha laga tago lama oran. war yaa alihi alaya ashahaad. waxa weeye war xoogaa ayaamo ku nagaado, kala fogaada, oo yaan laysku neefsanoo yaan meelaha laysku taataabanin. intaa keliya wey. wajcaluu buyuuta, cabsi baana timi oo keentay. maxaan ka jecelnahay wallaahi iyo bilaahi, waxa qorshahaygu aniga ahaa, dabcan qof idinka midaan ahay. qorshahaygu wuxuu ahaa bishii march baan halkaan imi, bilowgeedii makaan ka imi, alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin. qorshuhu wuxuu ahaa ilaa march aakhirkeeda, abriil horaankeeda inaan maaragtay aan danahayga halkan hawlahayga ka dhamaysto,
maka aan ku noqdo waa sida anigu ku xisaabtamayey makana aan ku noqdo oo bisha soon aan bilowgeedaba halkaas joogo oo maka aan sidai caadada ii ahayd 40 sano aan maaragtay halkaas ku cibaadaysto oo masaajidkayga agtayda ah iyo xaramka iyo halkaas beytka ilaahay subxana wa taala aan joogo taladu saasay ahayd ka baxday ankaraa jooga had marka laakiin cibaadadii miyaa dhammaanaysaa may aday kugu xiran tahay adigay kugu xiran tahay xiriirka adiga iyo ilaahayna subxana wa tacaala waa toos cid idiin dhexaysaa ma jirto laynkiinu waa toosan yahay wa idaa sa'alaka cibaadii cannii addoommadaydu hadday ikaa weydiiyaan fa inii qariibun waan u dhowahay ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waxaan ajiibayaa ducada midka wax weydiista buu leeya ilaahay subxana wa taala aayadaha soonka bartamaheeday ku jirtaa aayadaha soonka ee shanta aayadood ee ilaahay soonka kaga hadlay oo axkaamtiisa dhan ku soo koobay suuraة الbaqara ayay ku jirtaa oo ka mid tahay waxaana meeshaa ku jira tilmaan ah bishaan inaynu ilaahay subxaanaه wa tacaala u dhowaan karno fursad u haysano in ilaahay u dhowaano qariib u noqono siduu qariib inoogu yahay inaynu bishaan u dhowaano ducada salaada cibaadada sadaqada dikriga ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aanka aynu ilaahay ugu dhowaano fursad baaba haysataaba marka haddii musiibo kaa xoog badanay ay timi oo guriga lagugu xabisayna dhanka kale ka fiiriyo fursaddii baaba kuu siyaadayo waddadii aad socon lahayd iyo kasoo socon lahayd iyo jidkii maaragtay aad qaadi lahayd iyo dadkii aad arki lahayd oo salaami lahayd iyo shaqooyinkii iyo hawlihii aad ku mashquuli lahayd iyo waxaasoo dhan baaba kaa dhacay wakti badanaa kuu soo baxay qur'aanka maanta o dhan aad akhrin karto saacado badan aad akhrin karto aad ducaysan karto aad cibaadaysan karto aad ilaahay xusi karto aad adkaartii subax iyo galab akhrisan karto aad maaragtay wax badanaaba kuu soo baxay waaba nicmo kalaaba ku jirta dhinaca kale guri joogan nicmo kalaaba ku jirtaba dhanka kaleeto iyo cudurkan inagu khasbay guryaha inaan joogno marka waxa weeye saasaa qorshe aniga aha shaksi maana idin tusaale usoo qaadaya sidaanay noqotay alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waxaa dhici karta inay tan khayray tahay waxaan rajaynaya inay khayr tahay waxaan rajaynaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala marka aayadda qeybteeda hore waxay ahayd guryihiina masaajid ka dhigta labo arrinkii labaad wuxuu ahaa aqimu salaata salaadiina oga marna lagama tegayo salaadii saddex wabashir اlmu'miniin buu ilahay ku xijay wabashir اlmu'miniin taasana waa arrin weyn musiiba hadday timaado oo salaadii aad masaajidka ku tukan lahayd kuu diiday oo cibaadadii aad maaragtay jamaacada tegi lahayd kuu diiday bishaara ka dambaysa ogow bishaaro mar walba bishaara ka dambay wabashir اlmu'miniin un bishaaray inuu ilaahay faraj furayo ina maca alcusri yusran yacni culayska waxaa ka dambeeya wax wanaagsan baa ka dambeeya bishaara ka dambaysa ina maca alcusri yusran haddii habeenku mugdi uu noqdo subax baa ka dambeeya fajarkii baa ka dambeeya soo baxaya marka ha isku dhibin nebigu alay sala slam wuxuu leeyahy qofka addoonka haddii uu cibaado lahaan jiray masalan salaatuleil buu tukan jiray sadaqooyin badan uu bixin jiray markuu gurigiisa iyo xaafadiisa joogay waa safray oo arrimaha ka mashquuliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo karamkiisa iyo deeqsinimadiisa waxaa ka mid a wax allaale wuxuu samayn jiray markuu caafimaad qabay oo negaa ayaa loo qorayaa subxaana allahi alcadiim waa loo qorayaa marka wax allaale wixii cibaado aad jeclaan jirtay oo sababi kaa dhex gashay adiga kaa baxsan waa laguu qorayaa ha ka welwelin marka saas darteed waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalkeenni gaar ahaan meelaha aadka loogu badan yahay sida caasimadda muqdisho oo kaleeto oo hadda maalmahan ayaamihii hore dhan culimmada qaar qaylinayeen war hala kala fogaado war hala gaabiyo socodku meelaha la isugu imaanayo masaajida iyo jamaacaadka iyo xoogaha hala hakiyo war hadda waxaa soo yeera masaajid masjidka iyagii annaga 20 qof baa fariisan masjidka iyagii annaga 50 oday baa maaragtay aan allah loo duceeyo maaragtay ninkii dhakhtarka ah baan saaka ujeeda wuxuu leeyahay cisbitaalkii laftigiisii shaqaalihii shaqaynaya cisbitaalka ugu yar 50 qof baa xanuunku hayaa waxaan waa xanuun faafaya waa cudur faafaya waa kii camr ibn alcaas radi allahu canhu yidhi war cudurkan daacuunkii camwaas war kala faafa oo kala yaac oo buuraha ku kala yaaca iyo buuraha fiqigiisay ahayd iyo maaragtay marka qadar ilaahay weeye qadar ilahay o kale aan uga cararaynaa in sha allahu tacaala qodobkaasna waxaan leeyahay dadka soomaalida ah waxa kanu ilaahay idankiis
waa imtixaan xikmad buuna ilaahay usoo diray xikmaddaas ilaahay subxaana wa tacala usoo diraya kulligeed dhib ma wada aha waxbaa inoogu jira xataa faa'iidooyina ya faa'iidooyinka waxaa ka mid a inaad cibaadadaadii yani dib isu fiiriso inaad qudrada ilaahay ogaato kownkan inuu ilaahay subxaana wa tacaala keligiis maamulo inaad aragto adigii caruurtaadii iyo xaaskaagii iyo ninkaagii iyo gabadhi wakti isu weydeen inaad wakti isu heshaan oo gurigiibaaba la wada jooga lakin hadiriirinina ya hadiriirinina oo hayscaayinina ee waxa weeye isfahma oo sheekaysta oo odag caruurtiisii uu waktiga u waayey yurub iyo maraykan iyo meelo badan hala sheekaysto oo hala fariisto oo ha warsado oo ha laysbaro oo duruus hala qaato oo yani oo kaleeto ha looga faa'iidaysto oo guriga waxa laga qabto oo shaqooyin kaleeto oo technologyada ha laga faa'iidaysto oo shaqada haddaad wax ku iibinayso maxaan kuu sheegaa online-ka iyo technologyada iyo internetka iyo adeegso oo sababo kuma hor istaagayaan wax allaale wixii aad qaban karto oo wanaaga oo adduun iyo aakhira qabsan kartidna ku qabso faa'iidooyinkay ka mid tahay faa'iidooyinkay ka mid tahay waxaa ka mid yani halkan aniga asxaabteyda hadda meel keligaya baa nagu qabsatay jug yani ragga qaarkood waxaa laga yaabaa dhowr xaas inay lahaayeen oo weligood aanay koob shaha karin oo maaragtay gabdhahooda caruurtooda dadkooda loo adeegi jiray hadda wuxuu ku baranayaa inuu adeegto dad badan bay bartay sida wax loo kariyo sida wax loo maaragtay maamulo sida guriga loo kala habeeyo waa faa'iido iyo cilmi cusub waaye dadka qaarkiis xataa ay ka faa'iidaysteen coronavirus marka anigaa ka mid a marka insha allahu tacaala waxyaalahaas oo dhan oo fawaa'ida baa meesha ku jira yaan dhinaceeda shar wada maxdiyana ilaahayba maba abuuro shar maxdiye waxay yidhahdeen culimmadu shar maxdiya oo soocan oo miiran ilaahay subxana wa tacaala maba abuuro ee waxa weeye shar kasta ama dhibaato kasta oo xataa soo degta waxyaala minaxaho wanaagsanoo faa'iidooyin oo dhanka kaleeta ah ayaa ku jira marka iyada laftigeeda dhinacaasna aynu ka fiirino qadartii ilaahay inay tahay aynu ka fiirino duruus iyo cibrooyin inaan ka qaadanayno oo aan ogaanayno bani aadamka daciifnimadiisa dowladihii waaweynaa iyo waxaanu haysanaa iyo kanaanu yeelnaa iyo coronavirus yar oo aan la arki karin uu maaragtay dhulka soo dhigay iyagii oo dhan isku dhex yaaciyey waxaasoo dhan waa cibrooyin iyo duruus ilaahay subxaana wa tacaala na barayo marka qodobkaasna halkaas ayaan uga baxaya digniinta hala qaato digtoonidana hala qabo in sha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryaynaa bil ramadaanna ku jirnaa qunuudkii baynu qunuudsanaynaa inuu ilaahay subxana wa tacala dhibaatadan inaga dulqaado ilaahay subxana wa tacala wadooyinka shaqada iyo wadooyinka caafimaadka iyo wadooyinka isu socodkaba ilaahay subxana wa tacala inoo furo ilaahay cibaadadiisa noo furo noo dheereeyo waktigeeda ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay barakaadka bishaan iyo khayrkeeda ilaahayna siiyo ilaahay kuwa u dhow ilaahay naga dhigo ilaahay qur'aanka kariimka rabiica quluubina wa nuura sudurina wa jalaa axzaanina wa dhahaaba humuumina wa gumuumina ilaahay subxana wa tacala uu ka dhigo ayaan ilaahay subxana wa tacala ka baryaynaa dhammaan muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qodobka saddexaad waan rabay inaan maaragtay ku lifaaqo waxa weeye wax badan waxaa laga yaabaa inaad aragtaan mararka qaarkood inaan dalkan turkiga ee aan joogay coronavirus hadda beryahan nagu qabsatay baan dhihi lahaa aan waxyaalo soo dhigo shalay waxaan soo dhigay qiso gabar yar oo turki ah oo dalka sweden bay deganaayeen gabadhaasu aabbaheed baa xanuunsaday iyada iyo aabbaheed iyo hooyo lama sheegin waxaa dhici karta odaga iyo caruurtiisaas inay meesha joogeen marka gabadh iyo laba gabdhood oo waaweyn iyo wiil iyo odagii baa xanuunsaday odagii markuu xanuunsaday oo cudurkan uu ku dhacay waxaan wacay bay tiri ambalasti baan wacay way yimaadeen way qaadeen way soo celiyeen bay tiri waxay yihahdeen cudurkan waxba lagama qaban karo odagii xaaladiisii waa qufacaya aad buu u qufacaya aad buu u liitaa mar kalaan wacay way yimaadeen haddana waxay yidhaahdeen intaanu idin siinay ka badan lama qaban karo oo maaragtay meeshaas ka joog waxayna siiyeen halba hal oo sanka lagu xirto hal xabo oo sanka lagu xirto afka lagu xirto bayna siiyeen maskka baashan la hal xabo ayayna siiyeen bay tiri kadib haddana arrinkii odagii xaalkiisi uu kasii darayay bay tiri mar labaad baan cisbitaalkii wacay waa la geeyey waxay yidhahdeen intaan ka badan lama qaban karo haddana waa soo celiyeen sidii bay ku soo celiyeen waan yaabay bay tiri odagii aabbahayna uu kasii darayaa mar gabadhii social mediadan iyo barahan bulshada oo hadda yani dhibaatooyinna waa leeyihin faa'iidooyinna badanna waa leeyihiin oo qofkii ka faa'iidaysteen waxay soo dhigtay social mediada ayay waxay soo dhigtay clip yaroo saana oo ay duubayso ay leedahay
aabbahay saasaa dhacday, saasaanu cusbitaalkii waa wacnay dhowr jeer. waa magaalada Malmo ee dalka Sweden, magaalada saddexaad inay tahay baan rajaynaya. wax badan baan tegay oo aan maray. marka waxay tiri marka cusbitaalkii waxba nooma qaban, dadkana waxay leeyihin waxba lagama qaban karo, cudurkan baa saas dabeecadiisu tahay, annagu waxba kama qaban karno, marka ha iska joog, macnaha meeshiis ha iskaga dhinto miya. waxay tiri marka waxaan codsanaynaa in nala caawiyo, macaawinaan codsanaynaa, ma aqaan waxaan sameeyo. ay tiri waa gabar yar oo dhowr iyo 10 jira, gabadha soo dhigaysa maaragtay oo aabaheed xanuunsan yahay sariirta yaallo. marka arrinkii social mediaha markuu soo galay, afturkii bayna kusoo dhigtay, markiiba wuxuu ku faafay baraha bulshada ee maaragtay turkida. wakaaladda wararka ayaa markiiba soo guurisay, markiiba dowladda turkiga waxaan filayaa waxay soo dhigtay habeenkii 12kii habeennimo, shalay maa doraad habeennimadii bay 12kii fiidnimo meelahaas kala barkii habeenka ayay soo dhigtay. 4tii subaxnimo, 4 saac kadib waaye, 4tii subaxnimo wasiirka caafimaadku wuxuu soo dhigay ee waddanka turkiga, Dr. Fahrettin Hoca wuxuu soo dhigay weliba yani tusaale waxyaalaha cibrooyinka. wasiirkan waxaan fiirinayay barihiisa bulshada, wasiirka caafimaadka waddankan waa nin dhakhtar ah. 400,000 baa ku jirtay ramadaanka coronavirus markay bilaabanaysay. 400,000 ayaa twitterkiisa ku jirtay. shalay baan eegayay 7,800,000 baa ku jirtay. xataa madaxweynihii wuu dhaafaya hadda. waa wasiirka koowaad ama yani siyaasiga koowaad ee turkiga buu noqday sida uu runtii arrinta coronavirus u maamulayay ninkaas, iyo daqiiqad sida uu bulshada ula soo xiriirayo, meesha wax marayaan mar walbaba sida uu sheegay. marka wasiirku wuxuu soo dhigay twitterkiisii 4tii subaxnimo, yani 10 saac habeennimo sida qofba u yaqaano, fajarkii ka hor wuxuu soo dhigay gabadhayna leyla la yiraahdo waan ajiibnay, fariintaadana waan aragnay, aabbaha diyaarad ambalaas oo deg degaan u soo dirnay oo idin soo qaadaysa oo idinku soo maqan tahay. 3 saac oo subaxnimo diyaaraddu waxay ka degtay magaalada Malmo airportkeeda. odagii waxaa lagu soo duubay isagoo dhan, bac baa lagu soo riday, bac baa la soo geliyey isagoo dhan. tiimna waa loo diray, fariiq koox baa loo diray, dhakhaatiir iyo kaaliyaal dhaqaale ah, caafimaad ah, oo iyaguna wada labisan oo qafilan. odagii qan baa lagu soo siiyey, caruurtiina waa lasoo xirxiray, diyaaraddaa lasoo saaray, ambulasta waa lala soo duulay. halkan bay waxay ka soo degeen duhuradii taqriiban 11kiiba waxay yimaadeen, lanna halkan iyo turkiga iyo Sweden iyo Norway iyo 4 saacadood way diyaaraddu flightku. halkana laga soo dejiyey, isbitaalka toos loo geeyey, isagoo qafilan, ambulance kale lagu riday, jab qol baa keligiis la geeyey. wixii oo dhan baa maaragtay dhakhaatiirtii iyo hawlihii sidii loo maaragtay waxayna markaa dhakhtarku wuxuu soo dhigay wasiirku 25,000 ayaanu daaweynay dadkii laga helay cudurka ahaa. aabbahaan uu ka mid noqonayaa insha allahu tacaala, ka mid muu noqonaya 25,000 ayuu ku biirayaa. sidii bay noqotay oo ninkii waxaa haddana nala soo sawiray, sawirkiisaan soo dhigay, gacanta saas taagaya oo bahalkii keliya afka ugu xiran yahay oo awal ninkii sanduuqa ku jiray qufaca ka yeeraya aad naxayso. oo waxaan aragnay maaragtay fadhiyo oo saraar dadka salaamaya, oo kuwo kaloo xanuunsan oo agtiisa ah salaamaya, oo fiicnaaday oo xaaladiisa soo fiicnaatay. marka madaxweynaha dalka Rajab Tayyip Erdogan ayaa gabadhii telefoon ku wacay, wuu la hadlay. aabba sow ma fiicna, adiga aabbaba hadda turkiga timaadeen, waa uu bariidiyey, si fiican buu kolley ula hadlay. wuxuuna yidhi aabbaha waxba ha ka welwelin, insha allahu tacaala gacan aamina buu hadda kadib ku jiraa, gacan aamina ayuu hadda kadib ku jiraa. dalkiisii buu joogaa, dalkiinii baad joogtaan. dalkiinuna wuxuu ka mid yahay dalalka adduunka ugu horeeya ee xagga caafimaadka xoogga saara, oo aad iyo aad ugu dadaala dhanka caafimaadka. waa dhab weeye, xaqiiqatan waxaan markhaati ka ahay. ilaa 2007 dalkan turkiga waa 13 sano walaalayaalo. alraa'idu laa yakdibu ahlahu, dadkiisa been uma sheego qofka raa'idka. waan u kuurgelayay, waanan marayay 13 sano baan yani intaas aan ku noqnoqonayay dalkan, marar badanna aan joogo, waxna waan ka qoray, iyadoon baraha bulshadu soo bixin baan wax ka qoray. haddana waa idiinsii sheegayaa, bug baan soo wadaa la yidhaahdo turkiya iyo isbedelada ka dhacay iyo hogaaminta madaxweyne Erdogan. 13 sano waxyaalihii aan ka qoray iyo waxyaalahan hadda ku daray oo ay tahay faa'iidooyinka ilaahay subxaana wa tacaala siiyey inaan u kuurgalo sii ogaado
oo luqadoodii kusii akhriyo oo intaan ka aqaano ka fahmo inta kalena aan tarjumto oo aan bal sidee isbedelkaanu u dhacay. dalkan waxaan soo mari jiray airbortkiisa oo airbortkii ataturk oo cariiri, zaxmad, yacni kuulayl, sigaar meel walba lagaaga buufinayo. maalin baan airbortka aanoo maraya, koox baan soo ag fariistay, buf markii waa laygu daaray, waa ka kacay, qolo kale aan agteeda tegey, buf waa laygu daaray. markii dambe nin iyo xaaskiis waxaan arkay oo meel fadhiyo, waxaan isiri kuwaana roon oo qoys ah oo maaragtay keligood socdeen, bal agtooda fadhiisto. qoyskii maaragtiisa soo fadhiista 2 daqiiqo markaan fadhiyey wuu soo saaray ninka, markaasuu haddana islaantii u dhiibay. yaab waan ka kacay, waa tegey, waxaan arkay nin oday ah oo da-a iyo islaantiis oo cumradii u socda. kuwaana waxaan idhi kuwana roon, xaggan fadhiiso, bal meel kaleeto weyday. kuwii markaa ag fadhiistay xoogaa yar kadib xaajiyadii baaba la soo baxdayba, xaajiyad weyn 60 jir 20 jir 80 jir baf. waxaan idhi marka nin agteeda fadhiya caraba wuxuu yidhi, war dadkan ama ka carar turkiga way ku imtixaaman yihiin sigaarkaane, caruur iyo yar iyo rag iyo dumar kulligood la cabayaaye ee iskaga saasuu ahaan jiray. maanta horta isaga markii dambe waa laga joojiyey oo wasiirka caafimaadka joojiyey, airbortka xoogaa waa la nadiifiyey, waa la waasiciyey. laakiin kadib waxaaba socdayba oo qorshaha ku jiray airbortkan cusub ee istanbul ee hadda la sameeyey, ee adduunka kan ugu weynba noqonaya, haddana kuwa ugu waaweyn ku jira, isagoo weli wax u dhiman yihiin. oo maalin dhoweydna waxaan ka cabanayay mar dambe aan maaragtay airbortkan weyn istanbul siduu u kala fog yahay, waaba lugii baa idaalay. halkan markaa diyaaradda ka soo degto ilaa immigrationka ka tegayso waxaa laga yaabaa 15 daqiiqo inaad socoto. bismillah, intuu kala jiidan yahay, intuu kala soco. maxaa dhacay? waxaa la qorsheynayaa hadda sanadkan 50 milyan ayaa marayay airbortada, oo ugu badan yahay airbortka istanbul oo 30 milyan ay martay. waxay ku tashanayaan 100 milyan inay marto. waa qorshaha u degan, wixii dhici doona ilaah baa og. laakiin qorshaha degan waxa weye 100 milyan oo qof inay airbortkan sanadkii marto oo ka gudubto, aan waxba saa la isu taaban. adduunka halkaasu ka hadla. marka horta yani arrinkaasuu sheegay madaxweyne erdogan oo ah wadankiinu caafimaadka yani wadamada xoogga saara buu ka mid yahay. maalin dhoweed qiso kaloo dhacdaan idiin sheegaya. tv-ga aanoo daawanaya turkiga ayaa waxaa soo galay ninka mucaaradada halkan xisbiga ugu weyne mucaaradka ah. marka ninka madaxda u ah xisbiga baa wuxuu yidhi, yani cisbitaallada halkan laga dhisaya 3 waxaa jiray airbortkii hore cisbitaal cusub oo hadda la bilaabay laga dhisayo oo la yidhi 2 biloodaa lagu dhisaya. mid kaleetana meel aan ka fogeyn booba mid cusub hadda laga furo magaalo dhan ah. wuxuu yani moogtahay mucaaradada sideeda hadday iska noqoto mararka qaarkood waxaan isku shabahaa mucaaradooyinka dhulkeenna iyo kuwan turkida, waa isku mid baad moodaa mararka qaarkood. waa inuu wuxuun iska ceebeeyo. wuxuu rabaa marka madaxweynahan iyo xisbigiisa iyo wuxuun inuu ku ceebeeyo. isbitaallo waaweynaaday baa la dhisaa buu yidhi, wakti maaragtay lagu bixinaayo iyo xoolo badan oo maaragtay lagu yaa degaaya yaa gelaya. warkiisii baa la soo saaray hadda ka hor uu yidhi, yani maaragtay isbitaaladan maxaa loo dhisaya, yaa gelaya de intaasoo dada kumayaal oo la sameynayo waaweynaaday. kii yurub ugu weynaa, isbitaalkii yurub ugu weynaa, hadda markii coronavirus timid ayaa loo baahday isbitaalladaas waaweyn ayaa la yidhi in dadkii la dhigo oo maaragtay lagu waxayo. marka waxa weeye runtii horumar weyn bay ka sameeyeen. qodobka aan marka saddexaad yaanu warku ila balballaaranin, inkasta oo guryaha badanaaba iska joogtaan oo aad inaad dhegeysataan warbixintaana aad isaga baahan tihiin. waxa weeye dalkan turkiga ayaan u kuurgelayay buu ahaa sheekadu. waxna waan ka qoray, waxna waan ka qorayaa. bug baana soo socdaa hadda insha allahu tacaala dhowaan, intan ayaamahan aan uga faa'iideysanayo guri jooga oo aan ka qoro, dalkan ka qoray, horena uga qoray, haddana uga qoray. waxaana isbarb dhigayaa isbedelkan maxay ku gaareen dadkan, hogaaminta lagu gaaray maxay tahay, hogaaminta lagu gaaray sidan maxay tahay, maxaa sababay. haddii masalan walaalayaal mashaariicdan la yiraahdo kaabiyaasha dhaqaale waa wadooyinka, waa biriijyada, waa biyaha, waa korontada, waa airborada, waa tareenada, waa basaska iyo transportationka. kaabiyaasha dhaqaale ee wadanka wuxuu booday 500 mar ayuu tallaabsaday sidii 15 sano ay hayeen. 15 sano
annaga laftiga iyagu ma maqnayna arday baanu u ahaynoo turkiga xiriir fiican baan lahayn 15 sano 15 sano xiriir fiican baan lahayn xiriirkaas wuxuu gaaray xiriir tacaawun ama iskaashi ama cooperation waxa la yiraahdo ya tacaawun cooperation agreements aan leenahay dalkan oo wasaaradda toos ula xiriiri karto wasaarad hebel bay toos ula xiriiri kartaa waa la kala faa'iideysan karaa mashaariicda la isu dhiibi karaa wadamada xiriirada ka dhexeeya xiriirka ugu fiican baa naga dhexeeya waana in la kala faa'iideysto iyaguna ay naga faa'iideystaan oo dabcan waxay u baahan yihiin annaguna khibrad iyo wax badana u baahannahay waxna wayna tareen annana waxa weeye wax la-aan ma nihin annagaba hanti baa dalkayna taalla iyo khayr baa yaalla turki badan baa ka shaqaysata wax badan baa maaragtay uga furan in la kala faa'iideysto calaa kulli xaal laakiin waxaa ii soo baxday markaa researchka sameeyey inaynaan sidii la rabay inagu dhankeenna uga faa'iideysan iyaga ma aqaan intay faa'iideysteen faa'iidooyin badan kolley waa xaqiiqsadeen laakiin annagu sidii la rabay xiriirkan bilowday ilaa 2008 markii madaxweynaha turkiga uu tegey soomaaliya waktigii madaxweyne shariif sheekh axmed uu tegey madaxweynaha dalkan uu tegey soomaaliya ee dhibaatadu jirtay abaaruhu jireen ilaa maanta waa 11 sano 2009 ilaa 2020 11 sano waayo 11kaas sano 3 administration baa soo maray dhulkeenna ama 3 maamul laakiin maamulkii halkan weli xisbigii baa talada haya dowladdii ama xukuumaddii madaxweyne shariif xukuumaddii madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda hadda joogto waqtigeedu sii dhammaanayo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo marka intaas kaabiyaasha dhaqaale ee halkan ka dhacayay waxaa la fuliyey 135 mashruuc oo waaweyn mega projects baa la dhahaa mega projectskaas buundooyin waaweyn jidad hayweeye ah oo ballaaran oo aada u dhadheer eerbooro dhowr iyo soddon eerboor maxaan ku sheegaa korontada mashaariicda waxyaalo badan oo saasa marka waxaan isweydiiyaa ma aha inaan isbarbar dhigaayo soomaaliya iyo turkiga isma barbar dhigi karo cadaaladna ma aha inaan isbarbar dhigo dowlad taagan oo xoog leh oo dowladaha neto ugu xoog badan ciidankeedu ugu xoog badan yahay samatata oo ma isbarbar dhigaayo cadaaladna ma aha inaan isbarbar dhigo soomaaliya iyo turkiga inaan isbarbar dhigo dowladnimada halankan ka jirta ee gaamurtay ee soo socotay dowladdan iyo tii ka horreysay iyo tii ka horreysayba 70 sano ee xasiloonayd iyo waddan burbursanaa 30 sano hadda ugu yaraan ma isbarbar dhigaayo halkaas ma aha meesha aan u socdaa laakiin meesha aan u socdaa waxa weeye walaalayaal oo aan fahmi waayey oo maankayga ka weynaatay waxa weeye miyaynaan at least ka faa'iideysan karin miyaynaan qaabka loo shaqeeyo ku dayan karin miyaynaan dowladnimadanu siday u samaysan tahay xukuumadahaas saddexdaa soo maray u dambeeyey miyayan arki karin xukuumaddan ay la dhaqmayaan siday u shaqaynayso iyaguna inay ku aadanaadaan halkan wasiiradu masalan waa lala xisaabtama wasiir aan shaqadiisa ka adkayn bil ma joogo bil 1 month madaxweynaha uma joogi karo oo cayrin banaanka u tuuray waxaa ka mid ah wasaaradda hadda infrastructureka ama kaabiyaasha dhaqaale wasaarad gaara waaye madaxweynaha isha ku haya isagaa toos isagaa u jeegaraya ya mutaabacadaan ka sameeyey markii u horreysay waxaa 10 sano muddo 7 sano waxaa hayay ninkii prime ministerka waddankan ka ahaan jiray ee Yildirim ya Binali Yildirim waana nin injineera oo ku takhasusay maraakiibta waagii madaxweynaha waddankan Erdogan uu duqa magaalada Istanbul ahaana sagaashameeyadii uu la shaqayn jiray qaybta maritimeka iyo doomaha ayuu maraakiibta u qaabilsanaa kadibna wuxuu noqday wasiirka isgaarsiinta iyo infrastructureka iyo transportationka waana waddanka ragga wax ka dhisay yani ragga aamusan oo injineerada farsamo yaqaanada ee madaxweynahan uu haystay garbihiisa taagnaa ileen madaxweyne keligiis waxba ma sameeyo
madaxweynuhu wuxuu dejiyaa aragti, wuxuu dejiyaa maamul, wuxuu dejiyaa hindise, wuxuu dejiyaa hiraal, laakiin wuxuu urursadaa rag farsamo yaqaano ah oo nooc walba, xagga caafimaadka, xagga infrastructureka, xagga maaragtay siyaasadda, xagga maaragtay tacliinta, xagga rag wuxuu urursadaa tiam, wuxuu xushaa wax qabad leh oo wax qabta oo waddanka dhisa oo himiladiisa fuliya ayuu gurtaa. raggaasu ka mid ahaa, tiimkaasu ka mid ahaa. marka ninkaasaa 10 sano muddo hayey, kadib rag kalaa lagu bedelay, ilaa 2 wasiiroo waxaa jirta deg deg loo bedelay, markiiba waa la bedelay, rag qaarkood waa la bedelay, muddo yar bay joogeen. maxaa dhaca, qofku waa inuu himilooyinka visionka qofka leh, madaxweynaha aragtidiisa qof fulin karaa waa inuu meeshaan yimaada, haddii kale waa inuu tagaa, gurigiisa aadaa, meel kale aan ka shaqeeyaa. miyaynaan waxaan isiri ka faa'iidaysan karin? midda labaad, miyaynaan ka faa'iidaysan karin inagu yaynaan baa dee dhisa, anuu malihi maan cisbitaalada bashaak shihir iyo istanbul iyo ankara iyo waxaas maan dhisno, dhaqaalaheennu ma gaaro, awoodeennu ma gaarto, dowladnimadeennu ma gaarto, waxyaalaha nagu hareeraysan ma gaaraan, annagoo dhanba waana la xukumaa oo mujtamac dawli iyo ciidamo ajnabi iyo kada iyo kada iyo kada iyo bulshada caalamka iyo beesha caalamka iyo waddan waxaan nahay duruufihiisa gaarkaa iskale, waxaasoo dhan waan tixgelinayaa. laakiin walaalayaal, shay baa jira, qofku hadduu nolol doonayo wuu noolaadaa, qofka nolosha doonayaa wuu noolaadaa, qofka doonaya meel inuu gaarana wuu gaaraa. ilaahay subxaanahu wa tacaala na wuu ku garab galaa hadduu niyadiisa ka facalima maa fii quluubihim, qalbigoodu dadka fiiriyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo niyaddooda. tallaabo intaadan qaadin oo cusbitaal dhisin, oo eerboor aadan dhisin, oo waddo aadan dhisin, oo buundo aadan dhisin, oo deked aadan dhisin, waxaa ka horeeya qalbigaaga inay ku dhisnaato. horta waa inay ninka madaxda ah qalbigiisa ku dhisnaataa, waa inay wasiirka qalbigiisa ka dhisnaataa, daarahaas waa inay ka taagtaagan yihin, dekedahaas waa inay ka dhisan yihin, qalbigiisa laabtiisa waa inay ka dhisan yihin, himiladiisa niyaddiisa waa inay ka dhisan yihin, cusbitaalladaas la rabaa waa inay niyaddiisa marka hore ka dhisan yihiin, inta aanay practically dhulka u iman. waxaan waa niyadda marka hore, waa inay fikirkaaga ka buuxdaa. marka anigu waxaan la yaabaa oo hadda muddooyinkii u dambeeyey oo aan dalkan muraaqabeynayay, 10 wasiir baa imanaya oo Soomaaliya ka socda, 10 wasiir baa imanaya oo dhulkan imanaya, kumanyaal xildhibaan baa imanaya, waa isdaba socdaa sidii shacabka oo kaleeto, ruf iyagana eerboradii nagu ciririyeen iyo meelihii juruf meelay u ordaayeen ma taqaanid, halkan miyaa dalkoodii, miya halkan miya Turkiga, miya dalkoodii. almuhim sidoodii iyagoo ah bay haddana noqdaan. muqdisho wuxuu ku noqonaya isagoo sidiisii, waxba iskama soo bedelin. war haadhe, miyaadan wax arkeen? indhaha okyaala ma ku gashay? miyaadan wax arkeen? jidadkan see loo dhisay ma isweydiisaa? isbitaaladan see loo dhisay ma isweydiisaa? fikirkeeda ma celisaa? dadkaagii ma ula noqotaa? fikir ma keentaa? maskax ma keentaa? himilo ma keentaa? dadkaaga ma la wadaagtaa? mana tustaa adiga inaad waxaan rabto? mana tustaa? mana weydiisaa? dadkaaga ma weydiisaa? see dalkan u soo qaadnaa mana tiraahdaa? hal kelimad kama maqlaysid, hal kelimad kama maqlaysid. soomaaliya waxaad moodaa wasaaradaha iyo jagooyinka in loo doonto qofku inuu ku noolaado keliya. halkanna waxa weeye qofku inuu wax keeno oo himilo keeno. xisbigan markii uu imaanayay, waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan kariimka wuxuu yihi walow araaduu lkhuruuja la acaduu lahu cuddatan. qofku hadduu doonayo inuu duulaanka inuu galo, saansaantiisaa laga gartaa iyo siduu isu diyaar garaynaya laga gartaa. dadku ma indhalaa. nimankan xisbigan hadda waddankan isbeddelka waxa ku sameeyey markuu imanayay 2003 oo ugu horreysay, wuxuu garabka ku watay 300 oo mashruuc, 300 oo projecti oo dhaqaale oo diyaarsan, faylalkooda gacantay ku wateen, way diyaarsanayd. marka xukunku uma ahayn meel la tago oo shaararka lagu caddaysto oo maaragtay xoogaa biilka laga helo. qofku hadduu biilkii xoogaa ku soo adkaaday, ma ahayn arrintu saas. waxay ahayd in xukuumadda iyo powerka looga faa'iidaysto mashaariicdan in la fuliyo. leanno dowlad baa lagu fulin karaa, xukuumad baa lagu fulin karaa, laguma fulin karo si fardiya. taasay u raadinayeen xukunka. annaga waxaad moodaa xukunka, wasiirka, jagada, xildhibaanka in loo raadiyo, sida qaalibka baan ka hadlaya, sida badan in loo raadiyo
ma aha dal iyo dad in wax laga qaado oo dowladnimo la dhisee waxaa la raadiya qofku see isagu see u noolaadaa halkaas xataa hadduu maaragtay jago ka raadinaya wuxuu raadinaya see u noolaadaa muxuu ka heli karaa xageed wax ka badan waxaan uu ka heli karaa sidee xoogaa isagu gaari oo ku socdo gaari ka fiican u gaaraa sidee gurigan ku jiro guri ka weyn u gaaraa sidee maaragtay xoolahan uu haysto xoolo ka badan u gaaraa waxaas un bay nin ka fekeraya iyo nin ka fekeraya waxa kan see dal iyo dad uga fudaysaa maskaxdaada ku jira oo projectyadan diyaarsan see u fulisaa marka horeyba u diyaarsantaha marka hore u diyaarsan 300 mashruuc baa diyaarsanaa walidaalika maalintii kow ay xukun ku fariisteen horey ka bilaabeen mashaariicii kow dadka masaakiinta oo dhan waa in maaragtay laga caawiya isbitaalada inay si bilaasha ay ku tegi karaan dadka dan yarta ah oo guryaha aan haysan ee buushashka ku jira muqdisho iyo xeryaha qaxootiga ku jira waa in la dhisaa 280,000 oo guri oo unities ah oo dadkaas faqiirka ah lagu siiyaa qiimo jaban dadka xoogsatada ah qiimo jaban 10 sano uu lacagta ku bixin karo si tartiib ah oo maaragtay installment ah uu ku bixin karo ardayda faqiirka ah waa in intaas laga caawiya bugaagta waa in waxaas laga waxyaalo waxa waaye fudud oo kow lagu bilaabo laakiin guri walba yaba laga dareemi qoys walba waa dareemi wuxuu dareemi in noloshiisii wax iska bedeleen wuxuu dareemi in dadkan meesha jooga isaga ka fikirayaan wuxuu dareemi in dalkan iyo dadkaanu dalkiiba xataa ciidiiba xataa dhaqaaqi oo hadli waxay dareemi in iyada la rabo in la camiro oo wax laga bedelo annaga sideedii sidii ilaahay u abuuray bay ahaanaysaa 30 sano 20 sano kan ha yimaado kan ha tago kan ha yimaado kan ha tago kan ha yimaado kan ha tago waxaan cuni lahayn xataa cuni lahayn masagadi aan cuni lahayn baa la soo bixi kari lahayn masagadi aan cuni kari lahayn waxaan isweydiiyey war haade turkidan waad la kulantaan 3 xukuumadood oo iska dambeysay tii shariif tii xasan tii maxamed farmaajo war haade dadkan aad la kulantaan miyaydinaan siday u fekerayaan u fekeri karin dalkooda siday ugu fekeri karin waxyaalaha ugu weyn oo laga faa'iidaysan karay waxay ahayd welina laga faa'iidaysan karo nimankan turkidu waxay ku amaanan yihiin dadkan qolo walba ceebana waa leedahay wanaagna waa leedahay waxyaalaha wanaagooda waxaa ka mid ah inay isku tashadaan xataa afkooda soomaydinaan arag aad dhibsataan oo qofku markuu airbortka ka soo dego af kale aan lagula hadlahayn waxaan turki ahayn af turki aan ahayn soomaydinaan arkin ha dadkiina mara soomaydinaan arkin ha ma la yaabantiin ha waxa weeye anigu kuma baahan anaa isku filan afkaygaana igu filan saas weeye macnuhu supermarketka marka aad tagto oo shayga aad soo qaadato af turki keliya buu ku qoran yahay warqadda korka kaga lifaaqan af turki keliya ku qoranta af ingiriis kuma qoran uma baahnay buu ku leeyahay isagoo yaqaan kuma hadlayo ku leeyahay maxaa dhacay masagadiisa isagaa la soo baxay haruurkiisa isagaa la soo baxay rootigiisa isagaa la soo baxay bariiskiisa isagaa la soo baxay birtiisa isagaa tumanaya ya albaabkiisa isagaa samaysanaya gurigiisa isagaa dhisanaya daaraha waaweyn oo aad u jeedaan ya oo la dhisaayo daarahaas waaweyn waxa weeye mismaarka ugu yar ilaa kan ugu hooseeya iyagaa keensanaya injineerka ugu weyn ilaa farsamo yaqaanka ugu hooseeya oo korontada samaynaya iyagaa keensanaya waa ictimaad cala daat maanta haddii wax dhacaan waxay isku dayayaan berrito inay uga gaashaantaan in ayan u baahan ajnabi hadda markay coronavirus timi iyagaa loo baahday 39 wadan oo maraykan ku jiro baa iyaga kaalmo ka soo dalbada ama ha weydiisto bahalkan sanka la saaro ama geedaha wax lagu neefiyo ama tan dadka oxygenka lagu siiyo ya iyaga kaalmo la weydiisanaya maxaa dhacay waxa istaraatiijigoodu yahay istaraatiijigooda wadaninimo baa waxay tahay yaanan u baahan anigu hadda fiiri ciidankooda qorayga uu isticmaalo waa qoray u gaar ah oo turkigu sameeyo waaye from police ilaa military qorigooda waaye ma AK 47 kada fulan calaan geedi ma M16 waxa maraykan baa sameeyey ruush baa sameeyey anigu waan sameeyey goormay dhacday waagii 74 ay la galeen dagaalka Greega ayaa mar waxa jiray rasaasta ka go'day alaabta ka go'day oo ka go'ay waa loo diiday reer galbeedka loo diiday waxay ku tashadeen inay waxooda samaystaan oo mar dambe aanay xabad rasaas aanay uga baahan
qof kaleeto hadda waxay marayeen diyaaradda droonka ah waad aragteen dagaalkii dhoweyd oo suuriya xuduuddeeda ka dhacayey diyaaradda droonka oo keligeed iswada ma ujeedaa in adduunka la yaabo kuwa maraykanka iyo xataa ay la yaabaan sida loo sameeyey diyaaradda ama sida ay diqada ay meelahay garaacayso ay ku garaacayso waxaan is iri sax weeyo annaga waxbaan ka faa'iidaysanaa ciidamaan halkan usoo dirsanaa ciidamay noo tababaraan khayr allaha siiyo xaggaas akademiyay ka dhiseen oo maaragtay ciidamay soo saaraan racrac bay noo soo saaraan dhalinyaro fiican bay noo soo saareen khayr allaha ka siiyo xukuumadihii bilaabay arrintan ama ha noqoto xukuumaddii xasan sheekh ama ha noqoto tii shariifka ama ha noqoto middan hadda joogta dadaal waa la sameeyey laakiin walaalayaal waxa aan ka hadlayno waxa weeye maxaa la qaban karay maxaa qabsoomay miyaynan kaga dayan karin inagu laftigeenu maalin walba hal cisbitaal xataa anugu malihi kun cisbitaal maa la dhiso hal jid ma furi kari weyna 15 sano anagu macal ardayda anu ahay ma isugu tegi kari weyne saddexdii xukuumadood in mid bilaabo midna sii dhamaystiro midna sii dhamaystiro ma la samayn kari waayo suurtagal maaha miya impossible miya wax dhici karay ma aha miya hal cisbitaaloo yar hal jid oo yar kismaayo ilaa xamar waa 500 kilomitr naftii baana qabatay buulaxaawo ilaa iyo xamar naftii baa ina qabatay 4 habeen baa lagu jiraya 3 habeen baa lagu jiraya what kind of life noloshaan ku jirnaa maxay tahay waan ka xishoon lahaa inaan idhaahdo wasiir baan ahay waa xishoon lahaa haddaan u imaado nimanka ama la fadhiisto weliba waxaan ogahay walaalayaal in layna mitiriyey oo layna cabiray oo mas-uuliyiinteenna intooda badan la cabiray lana ogaaday cabirkoodu inta uu dhan yahay la ogaaday waa arrimahan ka ogaaday coronavirus allah noo barakeeye laakiin markaan wax akhriyey oo fiiriyey oo u kuur galay aan ogaaday in nala cabiray nalana ogaaday cabirkeenu intuu leegi cabirkeenu intuu leegi wasiirku markuu wasiir soo hor fadhiisto cabirkiisa wuu yaqaan xildhibaanku markuu xildhibaan soo fadhiisto cabirkiisa wuu yaqaan inta badan wuu yaqaana saas darteed ayaynaa sidii la rabay wax uga faa'iideen waxaan dhihi lahaa marka bil ramadaanan ku jirnaa waxaan la hadlayaa qofka himila ka qabto siyaasadda soomaaliya qaar hadda u socda qaar hadda sii jeeda qaar hadda jooga ya walaalayaal miyaynan nagu filnayn africa lagu ceebeeyaa oo la yidhaahdaa waa laga shaqaystaa jagooyinka maafiyaad baa ka shaqaysta dowladaha africa way buuxdaa waana qatan tahay way buuxdaa waana mugdi way buuxdaa waana fakri waxa dhacayna waxa weeye siyaasiyiinteedii iyo eliidkeedii iyo mas-uuliyiinteedii baa la haray ma doonaya aniga soomaali inay saas noqoto ayaan daradaas inay ku dhacdo ma jecli inaynu la mid noqono ma jecli mana la jecli dadkayga iyo ummadayda inay saas noqdaan lama jecli waana wax muuqda nin kitaab ka qorayey baa wuxuu yidhi africa markaan tago oo waxaa la isu soo dhaweeyey waddamadaas africa waddan ka mid a airbortka bangiga adduunku ka socdaa meel kale kama socdo waa nin bangiga adduunka joogi jira markaan airbort ka degay sidii waxaa la ii soo dhaweeyey celebritygii buu yidhi war aniga haye wasiiro adduun markii la geeyey hal su-aalaan weydiiyaa buu yidhi caadatan sida haalibka ah hal su-aalaan weydiiyaa buu yidhi nimankaas maxay tahay waxaan weydiiyaa buu yidhi 20 sano kadib dalkiinu see rabtaan inuu noqdo waa is eegeen u dhahasaanay isu eegeen waa ham afkaysku maxaa dha waxba uma diyaarsana 20 sano kadib dalkaygu suu rabo inuu noqdo umaba diyaarsanaba hamigiisaba kumaba jirto fikirkiisana kuma jirto ma u qorna wax u qoran male wax u diyaarsan male fikirkiisa kumaba jirtaba see sawirka see noqonaya 20 sano kadib dalkaygu see noqonaya maba hayo fikirkeed maxaa su-aashii wuxuu yidhi xaggay isu celceliyeen markaasay qolada uu la sheekeynayo waxay qolo kale oo deriskooda ah oo afrikaana oo iyagana bay yidhaahdeen waddan hebel sidiisaan rabnaa inaan noqon wuxuu yidhi waddan hebelka ay sheegayaan waa mid isagana kasii liita oo xaaladiisuba ay kasii calaa kulli xaal anuma jeclin ayaan daradaas dadkan waxbaa laga faa'iidaysan karaa un baan dhihi lahaa intaan dhihi lahaa waxa weeye war niman yaho war heedha jaga in la doontaa ma xuma laakiin waxaa xun jagada inaadan hadaf u wadan jagadu iyadu ujeeddo maaha hadafna maaha yay hadaf inaga noqon hadaf ujeedda waxa ah mabda aad rabto inaad fuliso dal iyo dad aad rabto inaad wax ku fuliso
taasaa siyaasad loo galaa, taasaa jagal loo raadiyaa. waa inaad mabda iyo hadaf iyo ujeeddo fulinaysaa. haddaadan ujeeddo iyo madab cad oo waadix ah iyo qorshaheedii oo waadix ah haddaadan oo cad haddaadan wadan waa isdaalin, naftaadan daalin, dadkana waa daalinaysa, dadkana waa dhibaysa. saad ku soo gashay baadna kaga baxaysa, wax kaleeto aad kusoo kordhinaysa male. anigu ma aamini karayo annagoo wax walba inagu xeeran yihiin masagadeenni waan la soo bixi kari weyn. ma aaminayo annagoo dalka intaas haysan, ma aaminayo, mana iga dhaadhacayso. annagoo waxaasoo khayraada iyo adduuna haysana 15 sano ma aaminayo. waxba waa hal mashruucna waa fulin kari weyn. ma aamini karaayo. waayo caqabadaha waxaa looga gudbaa dad iraado leh, dad doonitaan leh oo rabitaan leh. hadday joogaan caqabadaha way ka gudbayaan. adduunka o dhan baa caqabaad. adduunka meel aan caqabo jirin ma jirto, meel aan mashaakil jirin ma jirto, meel aan qodxa kugu xeeran jirin ma jirto. adduunka sululux maaha wax walba, meel sululux ma jirto. adduunka hormarayna oo wax dhistay oo dalkiisa iyo dadkiisa hormariyey waxa weeye ma aha inuu caqabaad la'aan aha. waxaa laga yaabaa caqabaad kuweenna ka daran inay saarnaayeen, laakiin waxaa looga gudbay rabitaan, isku duubnaan, fikir. marka waxaan leeyahay dadkan soomaalida ah ee u hanqaltaagaya, qaarkoodna hadda soo socdaan, qaarkood horey u soo mareen, horay waxay u soo qabteen aan la arkin, hadda waxay qabteen aan la arkin. ma garanaysaa walaalayaalow, bishaan ramadaan bal xoogaa tatawaqafu, xoogaa dib isugu noqdo fikir. kolley warkaygu idin cajabin maaye, waayo nin meel u socdo oo kursi u dhalaalayo haddaad tiraahdo ka joog maba ku maqlaayaba. miyir uu kugu maqlayo, maskaxu kugu maqlayo. qaar baan arkay saasoo maskaxu kugu maqbalaba maba ku maqli karaba. cid waxaan ugu nabcay buu ku leeyay ninkii yidhaahdo maaratay jagadaan ha u ordin ama sheegaan ha u ordin. marka horta aniga kuma oranaayo ka joog. waxaan idinku yeerayaa keliya an tatafakkaruu. aayaddii qur'aanka ahayd baan idin xusuusinaya. qul inamaa acidukum biwaaxidatin an taquumuu lilaahi mathnaa wafuraada uma tatafakkaruu. war hal mar bal intaad soo joogsataan, hal mar keligaa intaad soo joogsataan, waxaan kugu wacdinaya inaad bal fikirto. an tatafakkaruu ma bisaaxibikum min jinna. markaa way arki lahaayeen nebiga calayh isalaatu wasalaam inuuyan jinnino ku jirin, sixirno ku jirin, ee uu taladooda iyo wanaaggooda u hay. anigana inaanan waalnayn oo meel cadan laga heesaynine aan wax maslaxaddeenna, dalkeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeenna iyo waddankeenna ay tahay aan ka hadlaayo. aan leeyahay war fursadaan aan haysanna aan ka faa'iidaysanne dadkii ka faa'iidaysan lahaana keen. taasaan horta kow leeyahay. midda labaadna waxaan leeyahay dadka hadda madaxtinimada haya, iyagana waxaan ugu naseexaynaya, kuwa hadda jooga iyo kuwa soo socda waxaan ugu naseexaynaya, adigu lahaw aragti iyo vision iyo hiraal meel aad ummaddan u waddo 10 sano kadib. markaad taa dejisana dadkeedii xulo. anigu waxaanan garanayn madaxda soomaalida waxaa aad loogu dhaliilaa dadka ay xushaan. waxaanan garanayn inay aqoon darre ka tahay oo dadka aanay kala aqoon, iyo inay kas iyo maa ka tahay oo ay maaragtay dadka dad aan waxba tarihayn oo soo kordhinayn inay maaragtay xushaan. war dadka aad xulanayso shaqaalaha kuu noqonayo, wasiirro kuu noqonayo, shaqaalo kuu noqonayo, waa inaad xisaabtanku waxa weeye, xisaabtanka dhabtahay waxa weeye, war yaa wasiiriyo qorshahaaga ii soo diyaari. waxaan rabaa wasiir caafimaadka 10 cisbitaal inaad dhisto 2 sano. qorshaheedii iyo waxay u baahnayd ii soo sheeg. anaa iga taqaana, ii soo sheeg waxay u baahnayd. qorshaheedii keen. haddaad fulin weydana bannaankaad joogtaa, iima shaqaynaysid. xisaabtanku nooc saasa waa inuu noqdaa baan ka wadaa. nooc saas adduunka saas way xisaabtanku. hadda ka hor baa ra-iisul wasaarihii great Margaret Thatcher islaantii la dhihi jiray ingiriiska xukuntay baa waxay ku tiri wasiiradeeda maalinta, anigu meeshan idinma aanan keenin inaad hadashaan, inaad wax fulisaan baan idin keenay. inaad wax fulisaan baan idin keenay, idinma keenin inaad hadashaan. hadal kuma noolaanayo. bahalkii sanka la saari lahaa baan la'na, neeftii baan la'na, isbitaal baan la'na, bahalkii baan la'na, waddaan la'na, korontaan la'na, biyaan la'na, kalaan la'na.
ceebteeda ninka maanta jooga keliya male, kii shalay jooga keliya male, kii doraa jooga keliya male, waa 15 sano 20 sano ilaa carta 20 sano intii hadda dowladii iyo maamuladii mid temborariya iyo mid bahalkii ah 20 sano waxba waa bedeli weynay yaan ku qancinaynaa. horta shayga waxa fiican adigu gartaada inaad naqsato, markaas adduun ku qancin kartaa. adduun ku qancaya ma jiro, ma joogo, cid inagaga qancaysaa ma jirto. 20 sano annaga waxbaan bedeli weyne, dalkeenna waxbaan ka hagaajin kari weyne, waxbaa inagaa wax inaga qalday. waxa inaga qaldanina waxa weeyaan inanaba wixii diyaar wahay. horta wuxuu waa inuu qalbigaa kasay nin islaam ah hadda ka hor culimada ah, war dowladda islaamka ama dowladda fiican haddaad rabtaan inay idiin dhisanto horta qalbigiina ka dhisan. qalbigiina markay ka dhisanto dowladda fiican ayaad dhulkiinana ku arkaysaan. waa inaad waxa weye himiladeedii, fikirkeedii, niyaddeedii, daacadnimadeedii, visionkeedii iyo aragtideedii waa inay kuu sawiran tahay. cusbitaallada aan rabo waddankayga inaan ka dhiso waa inay ii sawiran tahay intaanan meesha xukunka tegin, waa inay ii sawiran tahay. waddooyinka aan rabo inaan ka furo ama aan ka dhiso waa inay hadda ii sawiran tahay inta aanan tegin jegada horteeda, kadib baan soo saari karaa. oo bal dadku yay la yaabin meel balkoon fadhiya Turkiga waxaan u maanayaa inay yidhiin wadaadkan gacmaha taagtaagaya oo waalad muxuu yahay oo maanta keligiis isla hadlaaya, keligay islama hadlaaye may oga 1500 qof inay halkan ka dhegaysanayaan maaragtay la socdaan. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa qodobkaas waa ku dheeraaday qodobka dowladnimada ah, waayo waxaan jeclahay waxaan ilaahayna ka baryaa inta aan geeridu asiibin inaan arko dowladnimo Soomaaliyeed oo dhammaystiran, inaan arko dad mas-uuliyiin oo dalkooda iyo dadkooda ka naxaayo oo adduunku suu u nool yahay u nool, oo cusbitaaladii jidadki biyihii korontadii war wax xun inaynu ka bilowno. xataa waddada dad kaleetaa dhammaystiraya, adigu maaha wax walba inaad dhammaystirto, adigu wax walba inaad adigu dhammayso khasab ma aha. adigu inta aad awoodi karto bilow, keyrkaabaa imanaya, keyrkaabaa wadaya. laakiin waxa ayaan daraa inaan 20 sano tallaabadeedii aanay jirin ama bilowgeedii iyo fafaalaheed aanu dhicin. adduun baana lagu bedelaa 20 sano iyo 10 sano iyo waddamo dhan baa isbedela oo xaaladoodu isbedeshaa. marka walaalayaal aan fikirno, aan dib u noqonno, ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno. dalkan iyo dalkan waa hooyadeen waaye, dalku waa hooyadeen. wayna ashtakayna yowma alqiyaama. shacabkan waa dadkeennii waay, ummadeennii waay. yay dacallada iyo farqahana qabsan yowma alqiyaama, yay farqaha nagu dhegin. 15 milyan oo Soomaaliya hadday farqaha ku qabsato wallaahi iyo bilaahi waa ayaan daro. adna waad ku sii ordaysaa, weli waad ku sii mamantaha. waa idinla talinayaa nimankiinaan hadda ku sii ordaay, khaasatan kuwiina shalay la soo arkay. waxa waaye walaalayaalow naftiina u nax, naftiina u naxa. ilaahay ka baqa. ramadaan baa la joogaa, annagu cidaan ka baqayno male. ilaahay subxana wa tacala ka baqaynaa. naftaada u nax, naftaada u nax. shaan waxba ma yaallaan, isbedel baa loo baahay. marka bal fikera, dib aan isugu noqono, dalkeena iyo dadkeena iyo bal adduunka aan indho kale ku fiirino. khayr baan idin rajaynayaa. ilaahay subxaana wa tacaala waa khayr ha idin siiyo. waa ku dheeraaday intaad degeysanayseen. waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu dhibtaan corona naga dulqaado, inta xanuunsan inuu ilaahay caafimaadiyo, dadkeena iyo dalkeenana inuu ilaahay barwaaqo iyo nabadgelyo iyo khayr ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyo. maanta si iska yani xaafadeeda idinla hadlay aniga oo lebiskii culimada iyo waxba aan labisnayn, finaanadeeda caadiga iskaga joogay guriga baan idinkula hadlay. balakoonka iska fadhiya. ilaahay subxaanaه wa tacaala dhibkaana haynaga qaado. faa'iida ka dambaysa in sha allahu tacaala, bishaara ka dambaysa sidii aan sheegay oo aan ku bilaabay. wajcaluu buyuutakum qiblata waaqiimuu الصalaata wabashir اlmu'miniin. bishaaraysta in sha allahu tacaala khayr iyo barwaaq baa ka dambaysa in sha allahu tacaala dhibkan. salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى aalihi وصaxbihi ajmaciin. waana idin salaamay dhammaantiin meel kale oo joogta.